سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب بدنا شرفت بدنو ما أنتنا ومالين كله برامج كنا دقنك قيب كله والله يفهم waxaan limaanay goob dhalinyaro Soomaaliyeed ku dalxiisayaan waxaan rabnaa inaan barnaamij yar oo ku saabsan dhaqanka laakiin qaab kale loo duubay maanta inaan su'aalo ku weydiino iyo su'aal yar oo aan ka dhigno comment sida ay Soomaalidu u arkaan barnaamij maalin dhowta baraha bulshada haystay dhalinyarada Soomaaliyeed baa rabnaa inay ra'yigooda ku cabiraan sida uu dhaqankeena iyo diinteena ka qabto nala socdo naga tagneen waxaan u guda galaynaa barnaamijkeena hadda waxaan la joogtaa gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah dhalinyarada galabta meeshaan isugu timid walaal soo dhawow magacaaga noogu bilow iqra Xuseen Cali iqra soo dhawow walaal galabta waxaan ku soo inay barnaamij ku saabsan dhaqanka iyo inaad fikirkaaga ka dhibatay barnaamij maalmahan baraha bulshada haystay oo aad Soomaalidu u qaada dhigaysay marka see kula tahay barnaamijkan in naga qayb qaatay galabta walaal maxsan ma sha Allah soo dhawow iqra waxaan ku weydiinaa su'aashan u horeysa oo ah waxaad sheegtaa magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya oo ka kooban laba magac labada magac waxa ay leeyihiin magac u horeeyo wuxuu ka kooban yahay wax xoolaha xayawaanka wax walba ay wada cabaan oo cabitaan magaceeda labaadna waxa uu ka kooban yahay wax isna cabitaan ah laakiin dadka bas ay cabaaneen ay u badan yihiin bal magaaladaas Soomaaliya ku taalaay waana magaalo weyn caan ah bal isku day oo noo sheeg waxaad noo sheegaysaa magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya oo magaceedu uu ka kooban yahay laba qaybood labada qaybood waa cabitaan magaca qaybtiisa hore magaca qaybtiisa labaadna waa cabitaan ay dadka bas cabaaneen ay u badan yihiin in dadku cabaan xayawaanku waa cabi kara dadka u badan wallahi ugu adagtahay su'aasha ku adagtahay dhib ma lahan laazima su'aalaha in laga wada jawaabo ma garanayo iyo wacdan waxay kamid tahay aqoonta barteed magaalooyinkeena Soomaaliya wax kamid ah gobolladeena iyo dalkeena ina magacaashiisa magaalooyinka bartay oo wax mar walba fiican oo laazim marka taas waa ka soo noqonaynaa maalin dhaweyto habeen dhaweyto waxa la qabtay barnaamij lagu qabtay magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaaliya wuxuu ka hadlayay qoyska iyo sidii ay u burburaan iyo xalaha burburiya dhalinyarada Soomaaliyeed baa waxay kaga falceliyeen barnaamijka markay ra'yigooda ka dhiimanayeen in qoyska burburkiisa ay sabab u tahay sodohda oo wiilka xaqiisa hooyada wiilka ah barnaamijkaas maxaa kale da kala aragtay si looga falceliyeen oo maqashay wallahi shantan sano ilaahay mas'uuliyad weyn ku baahan laakiin waxa jira hooy xun iyo hooy fiican aniga sodoh in kastoo aan soo arkin ma aragtay wax dee kama sheegi kari wax burburayaan waxaas leeyahay labada qof mid kamid ah haddii oo labada qof mid sabro gurigu isnaanayaas leeyahay hooyana laga maaran karo markay waxa leeyahay gabdhaha bulaha bulshada oo labada maalin socday dhahayaan sodohda ayaa ka dambeysay sodohda waxa ka dambeysay malahan waayo ninka aad soo guursatay oo ilmaha u dhashay hooyada ku soo rafaaday sama aadan hooyada ku soo rafaaday micneheedu ma aad hooyada inay guriga keensato oo aad u galaato hooyadiisana aad diido markay hooyo laga maarmaas leeyahay dadka soo aaminsanay ilaahay soo haneeyay ما شاء الله إخرى waxay kamid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee galabta halkan aan kula kulanay waxay aaminsan tahay sodohdu inay tahay hooyo aan mar laga maarmin dadka fikirkaas qabana ay la noqotay fikirkooda la noqotay marka si wada jir waxaan u leenahay inagoo dhan ilaahay soo hanuuniyo hooyo laga maarmin saayelnaa ma santa ikhro waa ku faraxsanahay barnaamijka nooga qaatay hal leedahay hal iyo labo barnaamijku waa kula saxaya in hor loo wado wala saxaya ما شاء الله ما santa ikhro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddana waxaan la joognaa wiil ka mid ah dhalinyarada galabta meesha ugu nimid walaal soo dhawow magacaaga noogu bilow السلام عليكم والسلام يا أديجا يو أصحابك كفرن جامعك مسؤول وين من البجوات والسلام يا المقعي وحلا دا عبد الشافي موجي وكم على الحرجلي وحافظ إسلام لم يدخل الكمية برانش كنا قلبت أنا نسيت واحد وفرح سنة هاي كاميرمان سوق والسلام يا أديجا الصاحب كاد بالسلام يا برانش دادينيو marka saaxiib wixii su'aalaad weydiin karto waa diyaar insha Allah soo Abdi Hargele magacaas naguma cusba Soomaalidana kuma cusba Soomaa aadiyad Abdi Hargele galabta barnaamijkan duubin wuxuu ku saabsan yahay barnaamij dhaqanka awooye iyo su'aalo kale oo xiralayaal marka waxa daba yaal comment ah
barnaamij waa dhaweyta arrimaha bulshada baraha bulshada aad uga socday oo ku saabsanaa qoyska iyo waxyaalaha burburiya isagana uu inoo daba yaalaa sida ra'yiga dhalinyarada Soomaaliyeed ka qabaan waxaan inaan asxaabta gaarsiino oo Soomaaliyeed oo gaarsiino marka waxaan ku weydiinaa su'aasha koowaad goga xagal waxaad sheegtaa 3 sameerood oo wada saylan madow 3 sameerood oo wada saylan madow ama sayn madow saa u taqaan way wadataa su'aashaas dhib male waa su'aal ka mid ah dhaqanka galta reer Soomaaliyeed baan weydiinay channelkan sida aad ka warqabtid waxaan ku baahinaa waxyaalaha dhaqanka ku saabsan iyo waxyaalihii hore ee Soomaalidu isticmaali jireen dhib male su'aashaas inaad ka jawaabtid problem malaha Cabdi Hargale waxaan ku weydiinaynaa sidaan filay inaad daawatayba barnaamij maandhow lagu duubay magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaalida oo telefishin caan ah soo gudbiyay Universal TV oo ku saabsan dood loo qabtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga hadlayay qoyska iyo dhibaatooyinka ka dhaca ama dumiya commentiga u badnaa laga bixinayo ama laga bixinayo wiilal ka dhawa waxa loogu badnaa in qoyska dumitaankiisa ay qayb ka yihiin sodoxda ama ugu weyn tahayba ayada abaabulayso bal arrintaas maxaa ka leedahay horta arrintaas sina u jirtaa sina uma jirto qofta markaad soo guursanayso waxaa rabaa familkaaga iyo hooyada aabaha ay ku nool yihiin dadka walaalada kula dhashay horta inay ixtiraamto waa muhiim meesha ku jiro dee maamooyinka sidoo kale markay duqoobaan marka gabadha loo kiro kale haa dee qofka markuu duqoobo isku dhex yaacaya soo maaha waxaa laga yaabaa inay iyadana dhibsato dee hooyada ma aysan dhalin moogtahay laakiin wiilkeeday wada joogaan ayadan dhibyaraama ku dhashay hooyay u tahay waxaa laga yaabaa maamada marka sidoo kale markay duqowdo ee isku dhex yaacdo kale inay hadalladii dhibsato gabadhii waa sida uu dagaal ku imaado dee markaasoo kale waa inaad kala fogeyso haddii ay gabadh dhashay oo maamada gabadha dhashay gabadheeda in loo geeyo sidoo kale noolaato laakiin aniga sidaan aaminsanahay waxaan arkayay inuu ay dhahayeen sodohda dee inuu wiilka ka raaco gabadha taas aniga waxaan dhaqan gabadha shalaad baratay hooyada way ku dhashay dawarka kugu waday caloosha kugu waday way ku soo barbaarisay dee inaad gabadha shalay soo guursatay hooyada wax kaga fiican malaha xitaa ubadka dhashay iyada kaga fiican caruur waad dhalaysaa duulaa ku sii laakiin hooyada waa keligeed mar kale kuma dhalanaysa dee kaa dhimata ama dayac adduunka uga tagta waa dee jannada maxaa la yidhi labada ilo hoosta ayadoo ducada ku gurataa marka aniga arrintaa waxaan ka aaminsanahay waxna way ka jiraan si haddii loo fiiriyana dee gabadha haddii laga soo dhaadhiciyo nidaamka reerkii oo si sax oo la socoto inuusan dhib ka imaanin sidaan aaminsan aniga waa maasan tahay ninkaana waxaa saaxiibkeena Cabdi Hargale oo runtii comment qurux badan ka bixiyay dhalinyarada Soomaaliyeed waa reer qalbi wanaagsan aad u wanaagsan hal iyo laba qof oo la qalday ama fikra shay lagu soo mooyaan waa shakhsigii labaad oo galabta aan la kulannay oo runtii aad iyo aad si dareen looga farceliyay barnaamijkii maalmahan baraha bulshada ku jiray Cabdi Hargale waa ku maasan taasaan uga qayb qaatay barnaamijka maxaad kala leedahay barnaamijka hal iyo laba inta asxaabta aad u salaamaya janalka ku xiran mar walba waa salaam garta bisama aad waxaan rabaa insha Allah inay noo kala kiciyaan anoo galab walba barnaamij qurux badan iyo su'aalo wada naga helaysaan iyo barnaamij fiican laakiin waxaa daran in difiis ku diyo 19 qof laba boqol qof inay daawadaan taasaan ka xunna aad weyn marka waxaan rabaa inaan noo kala kicisaan dee fiisku dee lacag ma aad waa anagu intaas wada gambalaal baan noo xiriirsanaa dee habeen iyo maalin saa u daawanaa keligaana tirimo buuxin kartid maxaa la yidhi hal far maxaa la yidhi fool ma dhaqdo marka hadda inteenoo kale aan daawadno in kale ay sii daawadaan fiisku iska kordhaya sii ku kordhaya marka insha Allah waxaa idin leeyahay mar labaad mar saddexaad channelka kala kiciya fiidiyoyada share gareeya subscribe saara dee idinka waxay idin kuna wax kale idin ma garanay saaxiibkii Cabdi Hargale aad baa u maasantahay السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan haddana u nimaanay gabar kale runtii shacnigeed aad u shidan yahay waa shidan tahay yarta noo sheegtay miyaad heesti walaashay soo dhawow waxaan galabta qabanaynay barnaamij dadkaan ku weydiinay su'aalo dhaqana kadibna aan weydiinay dhalinyarada fikir waayahan socday inay balsay u arkaan comment ka bixiyaan marka soo dhawow sawarta barnaamijka inaga qabatay magacaaga nagu bilow waa diyaar oo ah حسن أحمد سودو أنت مقعد رمضان بعد هاي waxaan ku weydiinaynaa su'aal ku saabsan magaalooyinka Soomaaliya oo degto magaalo ka mid ah magaaladaas waxay leedahay laba magac labada magacba waa cabitaan
magaca u horeeyay waa cabitaan xoolaha iyo dadka wax walba cabaaneen magaca labaadna dadka bas u badan bini aadanka bas caba bal magaaladaas waa tee ما فكر كده waa fikir kale isku day ka dhahaa saan isbadan baa haystaa مقالة سبوسة واي magaaladaas waa boosaasaa tiri ma ahan haye marka labaad fiskal aan leedahay قرو waa mahadsan tahay garowe iyo boosan maahan sidaa isku dayna waa kaga mahad celinaa walaashay Haasal Axmed لكن ما شيء كرتا dhimale waa sheegna barnaamijka dabaysan ka sheegaynaa waxaan ku weydiinayaa Su'aal kale? may barnaamij fikir aan ku weydiinaynaa oo neer Soomaali aan weydiinay maalmahan iyo habeenada waxaa socday barnaamij baraha bulshada aad u haystay telefishin caan oo weyn oo Universal TV u duubay oo ku saabsanaa qoysaska iyo problemaha ka dhex yimaada marka dhalinyarada ka qayb galasay iyo dadkii ugu talagalay lagu casuumay fikirkii bixinaya wuxuu ahaa in qoysku ay burburiso inuu qofka uuna burburiyo yahay maamada ama sadoxda ahaa wiilka xaggeeda fikirkaasi soo aragtaa dhalinyarada Soomaaliyeed kollay su'aalo badan waa ka weydiinay adiga ka fikir ahaan maxaad qabtaa aniga waxaan ka dhihi lahaa saddex xubno way jirtaa saddex wanaagsan way jirtaa aad weyn mid kale saddexdaada adaa ka dhigin karo qof xun adaana ka dhigin karo qof wanaagsan aad weyn saddex adiga wanaagsan tahay waxaa laga yaabaa maalmo ugu horeysa inay xoogaa laakiin gadaal ay kaa jeclaato aad iyo dib ay kaa jeclaato marka saddexaha waa hooyo camal hooyada marka waxaan dhihi lahaa saddexdaada waa sida adig ka dhigatay inkastoo ay jiraan kuwo oo wanaagsan oo mataqaana wax kasta aad ku samaynaysid xumaata kasta aad geysanaysid ay kugu dulqaadanayaan wax kasta because reerkan wiilkeeda qoyska inay dundumisay diidan tahay adiga weli saddex ma soo yeeratay maya weli ma soo yeeratay laakiin insha Allah arjina ما شاء الله ما شاء الله arjayna ina caafimaad ku gaartid lana kun saddex la kulantid saddex wanaagsan saddex wanaagsan la kulantid ana waxaan sanaa saddex inay wada wanaagsan yihiin laakiin sida gabadhu ka dhigato ay tahay ya saas ma ka dhigto saddex mid kale waxa waaye waana hadda weynaaday aniga ma kana waana weynaaday wiilkayga oo mataqaana guursaday gabar kadibna ana xumayn kara gabadhayda ama ana wanaag mid kale sida u kala kulul yihiin waaye